فيتامين بي 12 kaada marka uu yar yahay waxaa isku arki doontaa ama isku arki kartaa calaamadaha soo socda. kow, madax xanuun joogto ah ama madax xanuun oo inta badan kugu soo laalaabta. labo, tabar darre iyo daal fara badan. saddex, wadna garaac. afar, dadka qaar waxaa usoo raaca carabka inuu qofka xanuunka dareemo, alsar ama dhaawac ama boog oo kale carabka oo ka yeeshto qofka. sidoo kale wuxuu isku arki karaa ama dadka qaar isku arki karaan cuntada qofka inay ka xirmato. dadka qaar waxay isku arki karaan dheefshiidka yani inuu qalqalo oo yani qofka xanuun calooshii wax lamid ka dareema ama dibiriya ama cuntada inay si fiican u shiidmaynin ama caloosh inay si fiican u soconayn iyo wax lamid ah. dadka qaar shuban ayay isku arkaan. dadka qaar ilaa heer waxay gaaraan yani xasuustooda iyo fahamkooda yani inay yani qalqal ku yimaado qofka dareemo inuu yani si fiican wax u fahmaynin ama xasuustiisa mararka qaar waxyaabaha qaar oo iloobaya. marka fitamiin B12 ma ahan fitamiin يعني فضود أما سهلا معهن وأنا فيتامين آد مهم وحياة بدن أيها الصو فيتامين كأنه هو صدعه لكن بالشدة إن أنت بدن وحياة كسو حكم ده قاعد شد داوين كان جاس كله استعماله هرتي وكخرن سيد نكس يام كأو كلا يمدد رخف كدوقات اللانز برازول كي برازول كي سعر كيسان بنت برازول كي رب برازول كي يا أما هيك تبلوكر كوان لده داوين كان كم دتك قاعد داوين كسكرته يعني سيد متفورمين كأو كلا يوحلا مدد قاعد يعني absorption ka ay qaldaan oo nuugitaanka fitamiinkan jirka uu nuugi lahaay ay qalqal ku keenaan. marka hadii aad isku aragto madax xanuun iyo daal fara badan iyo wadna garaac iyo carabka inuu ku xanuuno ama boog iyo wax lamid ah uu ku noqday abataydka cuntada oo ka xiran tahay yani shuban iyo wax lamid mararka qaar aad isku aragto dheefshiidkaada oo qalqalsan yahay oo calooshaas yani dibiriya ama xanuun iyo wax lamid mar walba ka dareemayso. hadii aad isku aragto calaamadaha ama qaar kamid ah waxaa wanaagsan inaad si degdeg xarun caafimaad u booqato si baaritaan lagugu sameeyo. dhiig ayaa laga baaraa waxaa fiican subaxii xilli hore qofka soo quraacan oo istaalka tago yani baarista loo sameeyo la fiiriyo dhiig ayaa laga fiiriyaa. haddii xaaladan jirtana saas ayaa lagu ogaan karaa. haddii calaamadahan xanuuno kale ee sababeenna uu dhakhtar kaaga baaro kadibna kaaga xaliyo insha Allah. fitamiin B12 kaana waxaa laga helaa cuntooyinkan yani hortiina ka muuqda arkaysaan marka inaa fahanteen ayaa rajaynaya. cashirka waa iska wacyigelin.